ayaa sheegay in Ciraaq laga doonayo inay bixiso kharashkii ku baxay saldhigga cirka ee uu degan yahay Mareykanku ee ku yaala dalka Ciraaq sida uu sheegay Donald Trump oo wariyaal la saarnaa diyaaradda Air Force One isagoo arrintaasi ka hadlaya waxa uu yiri waxaanu halkaa ka dhisnay saldhig qaali ah oo aan ku bixinay balaayiin dollar marka waa inay kharashkeennii noo celiyaan haddii aan baxayno haddii aynu weydiistaan inaanu ku baxno si aan saaxiibtinimo lahayn waxaanu saaraynaa cunaqabatayn aysan abid arag oo midda Iiraan ka dhigaysa wax aad u sahlan digniinta Trump ayaa imanaysa kadib markii xildhibaanada baarlamaanka Ciraaq ay u codeeyeen qaraar aan sharci noqonayn oo dawladda dalka Ciraaq weydiisanaya inay dalkeeda ka saarto ciidamada Mareykanka kaasoo loo fahmay tilaabo markaasi gacan ka taabasho ah oo lagu dejinayo shucuurta shiicada Ciraaq talaabadan ayaa muujinaysa in Mareykanku isu bedelayo sidii gumaysi cusub oo toos ah oo qawan taasoo bedelaysa siyaasadii hore ee ku dhisnayd gumaysiga dadban saaxiibadii dhowaa ee Mareykanku uu lahaa ayaa iyaguna u muuqda kuwa aan dan iyo xaajo ka lahayn inay mar dambe ku lug yeeshaan dagaalada aan dhammaadka lahayn ee uu Mareykanku uu ka ogo bariga dhexe sida midda ka dhalan karta go'aanka uu Donald Trump ku fasaxay khaarijintiisa rayo guud Qaasim Suleymani waxayna muujiyeen inaanay diyaar u ahayn dagaal lagu qaado Iiraan dalalka jawaabaha cad ku muujiyay mowqifkooda waxa ka mid ah dalka Ingiriiska oo taariikhiyan saaxiib dhow la ahaa Mareykanka wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas Dominic ayaa war uu soo saaray waxa uu ku yiri wax dan nooguma jiraan dagaalkan isagoo dhinacyada kale ugu baaqay inay isxakameeyaan gudoomiye عقوبات على العراق لم يشهد مثلها في السابق إذا طالبت بغداد برحيل القوات الأمريكية على أساس غير ودي. أضاف ترامب من طائرته الرئاسية أن قوات بلاده لن تغادر إلا إذا دفعت الحكومة العراقية تكلفة القاعدة الأمريكية هناك. فيها حريرك عالمي برلمانك إنجليزكا ayaa isna waxa uu sheegay inay Mareykanku isbahaysi ula noqdeen inay ka yaabiyaan cadawgooda balse aysan ahayn inay iyagu iska yaabiyaan Ingiriis ahaan wasiirka Yurub ugu qaabilsan Faransiiska Ameline de Montaigne ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters in talaabada Mareykanku uu kaligii qaaday ay tahay mid khatar ah oo ay horey uga cabsanayeen marka ay timaado dalalkii saaxiibtinimada dhow la lahaa taariikh ahaan ayaa dhammaantood dib uga baxay mashaqada Iiraan ee uu Mareykanku faraha la galay